لكن بشي ديسمبر سنة كي تجي لبدي كل شيء لعطان إسرائيل يعني نقطي نظام كوجه الرئي قرمد مدوبي حبك أقون صدا مملكة سوماليلاند وأنا حكتي أن رانت تتبات كي تجي ومدحوينها سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إرو أو بوقضي مقالة قدس وهشيس أمان يسكاشيه كلا بلس إحدى وسيرك كواد يبي من نتنياهو أنا قشاء أقوم مدن إسرائيل عرسنا ساوي هاي هلتان كسلك ملتري أو يكوري كرتو إيران يكوها الأولوج سيدا حوتيغا أما باحتا إن سوماليلاند لفتيدا u dirto dagaal wakaaladeed oo iyada u dan ah sida laga dhawaajiyay intuu cirra joogay Qudusta la haysto khaasatan mar lagu casuumay madal ay leeyihiin waxa lagu sheego saaxiibada Zion yalkeeda sareeyo guuta Cabdullaahi bin Amar oo warmay barnaamijka galalka ee ka baxa kanaalka Xuutiyiinta ayaa si qoto dheer u falanqeeyay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka iyo gulufka haatan ka socda isagoo xusay in xitaa dhici karto in dowladda federaalka Soomaaliya ka taageeraan inay xukunkeeda ku baahiso dalka Soomaaliya oo idil kana wada taliso. العربية قادرة على أن تدفع بهذه الدولة إلى أن تعمل على فرض سيادتها وهيمنتها على كامل يعني الصومال، يعني أنه الصراع في نهاية الأمر هو صراع مع العدو الإسرائيلي، ليس مجرد خلافات بينية أو لديهم رؤية في شمال الصومال تختلف عن الرؤية في مقديشو لديهم وسوق قضي حددها تاريخي إسرائيل كلها ذا بدأ عاس وسدوا يركب العمي حرير أيلا لهاي إمبراطور كي حيل سلاسي كدبنا أي سي ودي إلى كسر البقول أفري تباطكي وأكله وكهر لحرير مدقر صونا أو شاقين ودحمري إيذا إيو ماملك الصوماليلاند أنا فرتك قضي إن نظام كتلابيب أي مركو هوري إرتريا حرير لسمايان هورانتي السجاشميدي كدبنا أي قدون سدان إن أقون سدان وحلوغو يرو الصوماليلاند سيدا ويري أو الصوماليا قيبيان أما أي فشليان دولة دي كوميل جارك أهيد هالكا كجرتي كوسال بقول كوبي سجاشنكي إلى كوسال بقول لبا سجاشنكي. لاحقا يعني بعد أن تأسست علاقات مع أرتيريا وكان هناك أيضا تواجد في أرتيريا اتجهوا إلى الاستغلال جمهورية ما يسمى بجمهورية أرض الصومال أو الانقسام أو انهيار الدولة في الصومال منذ 91 أو 92. وكلو جنرال كان حسين كسال بقول لحي سجاشنكي وجاسنكي مساعد داني يطم وبقضي جسائر دعاء بدع عص سألك أقول ركبان أجب وحلقود لك استو حقوق وحيت الماميان إن جسائر كاسيين كو إرتريا اللو يقانو دهلاك أركبيلغو أو برت أجب نجيس قال نجاي يعتقب كترسن جسائر كحنيش أو يمن إسكو هيان أو إرتريا قيب يركايستو وارجسيرة استراتيجية أو نعا bartamaha badda cas khaasatan meel aad ugu dhow halka laga soo galo marinka loo yaqaano Baabalmandab. Waxa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mandi Palace Restaurant oo lagu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha aroosyada, ducooyinka, sanad guurada, shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah. meesha ay ku taalo shaashada ka milicso waxa xusud mudan in madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu xiriir wanaagsan la yeegalay nidaamka Tel Aviv markii hore walow uu imika xiriirkooda xumaaday isagoo waliba halka booqday Febraayo 5 1996 lana kulmay wasiirka koowaad ee xilligaasi Shimon Peres iyo madaxweynaha xilligaasi Ezer Weizmann. xiriirka ayaana qayb ahaan daarana abaal ay u galeen isaga maadaama ay ka daweeyeen cudurka maskax garaadka oo naftiisa halis gelin lahaa 1993. سرية قوتو بن عامر ayaa sidoo kale sharaxay in rabitaanka ku aadan in joogis istiraatiiji ah lagu yeesho koonfurta badda cas ay muddo soo taxnayd oo xitaa jirtay xilligii ra'iisul wasaarihii David Ben-Gurion tan iyo dabayaaqadii 1940-yadii taasoo uu sheegay inay hoos imanayso halku dhaga istiraatiijiga ah ee waa inaanu maamulnaa koonfurta badda cas. ujeedkuna haddaba ma aha oo qura dan istiraatiiji ah oo ku kooban in Xuutiyiin ama Iiraan halka laga tuureeyay sida uu qabo waa arrin ku guntan in gobolku aanu noqonin meel ay kaligood ka taliyaan islaamka iyo carabtu ama quwad kasta oo lid ku noqon karta qorshaheeda iyo xitaa qorshaha dawladaha reer galbeedka ee iyada gadaal ka taagan sida uu qabo walow haatan uu dhexdooda dildilaac ijtimaaci ah iyo mid diblomaasi ah oo muuqda ka jiro. يتواجد في هذه المنطقة لأنه لا يريد لأن تصبح هذه المنطقة تحت قوة أو إشراف يعني قوة عربية أو قوة إسلامية قوة مناهضة لمخططاته وأيضا مخططات القوى الغربية التي تقف خلف الكيان الإسرائيلي. سرية قوتو بن عمر أيها سيدو كلا كدقاي إن أساس كسالك أما حرون كستا أو عيدان أما سيردون أو نظام كسهيونيك إيه كيك لألو سوماليلاند
iyagu u arki doonaan halis istiraatiiji ah, iclaamin dagaal, howl loo egmada imaaraadka, dhamaystirka iyo soo nooleynta tillaabooyinkii ay saldhigga ciidan uga samaysteen gasaa'irka Suqaadra ee Yemen iyo saldhigyada kale ee military ay imaaraadku ka asaaseen geeska Afrika si ay uga adeegaan mashruuca sahyuuniyadda, taana ay dabcan la dagaalami doonaan sida uu yiri. imaaraadka carabta oo lagu tiriyo inay yihiin dal aqoonka dunida muslimka ay madaxdoodu rakaato lagu haysto iyo wixii kale oo ay tahayba ay si aan daal ka muuqanin ugu shaqeeyaan uguna howlgalaan danaha istiraatiijiga ah ee Tel Aviv. imaaraadka ayaa markii ugu horeysay xoog ku qabsaday jasiiradda Suqaadra 3 Abriil 2018 aanu markiiba halkaa geeyay sirdoonka Tel Aviv oo la sheego inay halkaa ku rakibaan agab dhageysi. balse waxaa nidaamka Abu Dhabi halkaa khasab lagaga ceyriyay bishii December ee sanadkii tagay 2025 iyo horaantii sanadkan 2026 markii uu Sacuudiga oo qabsigeeda bilowgii oo kula ahaa ay 24 saac u qabteen inay halkaa uga baxaan kadib markii uu sidoo kale duqeeyay hub ay ka dejinayeen dekad ku taala magaalada Mukalla ee dalkaasi Yemen oo ay dagaal sokeeyay ka oogayeen isla markaana ay ku foganayeen qorshe ay ku kala qaybanayeen. Maxamed Xaaji, Hadalsan TV. وقبي اقاتو هدى القلوب عيني الملاها وسقاني وفي بري وحوم قرسديو شرعك وقبني